su-aashan waxay leedahay fariinta aad jeclaan lahayd inaad hadda moobilkaaga ku aragto. laakiin maanta waxaan leeyahay adiga nolosheeda ku soo baxay. imika waxa laga yaabaa kariirkaaga nolosha dee waxaa jirta intaas oo waxaad ka soo shaqaysay mararka qaar waxaa jirta ka shaqayn jirta shaqo aan comfortable ku ahayn. su-aasheeda labaad haddaan ka jawaabo waa su-aal aad inkastoona garanaysaayey waxay odhanaysaa kelmaddii ugu xumayd oo qofku yidhaahdo ilaa imikaanadii laayin garanaysaa soo mataqaanaa meel baylooda iyo dakhtariyo xamed jecleen anigu waxa ugu weyn ugu jeclaa inaan noqdo marka weynaado waxay ahayd inaan gaari wado darawal noqdo. maalintii ilaahay soo gadaba hooyaday waxay iga soo kaxayn jirtay anoo nin gaari la ag joogaa waxaan yar yaa naga kaxaysan waayo ayaan ku dhahdaa maxaad furaysaa ya adeer ma ku raacaaba jooga lacag ka raacay halkaa tigid soo dhawaada saaxiibayaal waa Mawlid Saamiye muuqaal kale cusub ku soo dhawaada barnaamijkan oo magaciisa la dhaahdo Sam Talks. barnaamijkan caawa loo waxyaaboodna saaxiibayaal la wadaagaya qaybta koowaad waxa weeyaan waxaan isbarbar dhigayaa passion iyo money. af Soomaali ahaan la oran karo qofku hobbigiisa ama wuxuu jecel yahay iyo lacagta. sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa 100 su'aalood oo xaqiiqo ah oo soo diyaariyeen teamka Irman Media. martida caawa barnaamijka waxa weeyaan ana inoo bilaabayo aniga horta maalintii koowaad aanan channel aan ardaa media in ka soo muuqdo waana ii sharaf waana aad baan ugu faraxsanahay inuu Mawlid channelkiisu noqdo channelkii horeeyay ka soo muuqday laakiin saaxiibkayga meel kasta taagayso وفي كل مكان sheekh kulli aad iyo aad baan u salaamayaa asxaabta ku xidhan Mawlid Sam. maanta ninkan baan soo jiidnay waxaan ku nirday meel baad fadhidaa dadkaad wareysataa balkaale adiguna in yar xog adigana maanta laga qaado waxa weeyaan aad iyo aad baad u salaamantiin muuqaalka hadduu soo gaadho like subscribe share kana mid noqo asxaabta ku xidhan Sam Talks. habiyaal waxaan ku rajaynayaa Cabdikariin oo adiga markii hore markaad yarayd markaad wax soo baranaysay markaad iskuulka dhiganaysay markaad jaamacadda dhiganaysay wuxuu hobbigaagu ahaa iyo horta waxaan xasuustaa barigan ciyaalka ahaa ama iskuulka dhigan jiray laba shay uma sheegin jirnay imka ciyaalkan dambe ma garanayo waxay sheegtaan ama dhakhtar baan noqonaynaa waan oran jirnay ama engineer ay noqotay weliba dhakhtarku aad u badnaado waa la oran jiray maxaad noqonaysaa markaad weynaatay dhakhtar aadna maxaad noqonaysaa engineer like labada shay wax loo haystay labada nolosha ku xidhan tahay wax kastood ku soo barbaartaana waxay hadhow saameyn ku yeelanaysaa noloshaada caadiga oo waayo imka caruuraha heer caalamka ama dunida kale ku nool markay xanaanada ku jiraan baa qof alaab loo daadiyaa midi diyaaradu ku boodaayo caawa ku ciyaaraa midi caawa caruurta makeup u maraysaa ma garanaysaa marka qofku waxa laga soo dhax saaraa wuxuu passion u leeyahay garanaysaa laakiin inaga waxaad moodi jirtay biriga hore san wuxuu dhiganinay iyo ma garanaysaa in wixii qasab yahay waana dhakhtar baad noqonaysaa hadda ninkani saaxiibkaagani maba garanayo waxaan si meel loo maraba ama dhiigaba ka wasuusaaba way dhacdaaba dad badan oo dhiigga ka wasuuso waxaad arkaysaa haddana ama dhakhtara ama nurse ma garanaysaa niyo markan yara aad waxaan u jeclaa inaan noqdo dhakhtarkaas imikana waxaad noqotay dhakhtarka jacaylka imikana dhakhtarka afkaan haymay dhakhtarka afka iyo dhakhtarka jacaylka labadaba waa tahay wallahi waa run sidaa uu sheegay Cabdikariin berigii hore dadka waalidiinta waxa kaliya ay caruurtooda la jeclaan inay noqdaan waa dhakhtar iyo engineer anigu baylod baan jeclaa inaan noqdo laakiin marka weynaaday baa ogaaday inaan diyaaradaba lahayn laakiin badanka maaragtay qofku wuxuu noqonayo waxay ku xidhan tahay waxa uu maaragtay jecel yahay si kastoo ama dhakhtar u tahay ama aad engineer u tahay aad u baratay hadhow tolo marka u dambaysa kulli shay yarjic ilaa isli waxa aad يعني نقوليسي وبعد نقوليسا معناها وحي عاد إلهي كو قري أنا عاديا مركي هراء معركة اسمع الله هند سوشيال ميديا وحاس أياد معركة عن كان نقوليسا ياد وضيسا وقت ما حسوستا عن جامعة الجنشريو قبل جوان بحي ونحوي نرشة تيم كيو جامعة دون حتى ما لعبنا نيراد فريستان أنا فريستين شرينا في الماسكة داون شري social media ما استعمال شيء راح كاستعمال شيء واتساب كان هو يضيبان كود هذا الشيء هذه اللي يورا لها social media هذا التولي عاد كتير يسايو وحكسي سام بيرجع سام بلا مرتو يا بلا والله إيه بقولك الجامعة اللي جنسي ما تقارنا واحد الدالة تيم كوع عيال شرتي ما رتي يعني نوش هذا روتين يروح يعني مسكح هذا الحكي كتير كجامعة كده ها وح أبوه هنا سؤالين شرتي جامعة لما هذا حاجة شيء دمحوها
wallahi waxa ugu weynaa soo jiray waxa horta hadafkaygu ugu weyn wuxuu ahaa inaan jaamacadda dhameeyo oo aan horta jaamici noqdo digriga yar aan qaato ayuu hamigaygu ugu weyn ahaa markii aan dhameeyey aan dhamaystirayna inaan shaqeeyo marka meelo badan markaan Hargeysa ku soo noqday 2020kii meelo fara badan baan CV u geystay oo aan rabay inaan ka shaqeeyo laakiin may suurtagal ma ka soo laga reject garin jiray markii aan yaraa waxaan aad u jeclaan jiray inaan darawal noqdo idinku soo ma taqaanaa beelooda iyo dhakhtarriyo xamed jeclay anigu waxa ugu weyn ugu jeclaa inaan noqdo markaan weynaado waxay ahayd inaan gaari wado darawal noqdo maalintii ilaahay soo gadaba hooyaday waxay iga soo kaxayn jirtay aan nin gaari la ag joogaa waxaan yar yaa naga kaxaysto waayo aan ku raada maxaad furaysaa ya adeer ma ku raacaaba joogo laakiin raacay diyaarka tigid aad hore ku barantis ayaa soo jiray berigi dambe adigu waxa la sameeyay baaskilad baan hadda jeclaan jiray baaskilad la keenay adigu sidii yani waxaan jeclaa bahayd ilaa markii dambe daa adigu gaadhay inaan baabuur la iibiyo yani baabuur aan ku soo shaqeeyo caadi ahaan adu Cabdikariino doctor baa jeclayd doctornimadii waad noqotay oo ma taqaan qof doctor ah noqotay sidoo kale podcast qof sameeyo oo yani ku soo baxaya ayaad noqotay su'aasha aan doonayay bataqaana inaan ku weydiin lahaa haddii lacala aad ogaan lahayd marka in waxa aad ku fiican tahay marka aad yareyd waxa ugu weyniyay aqoonta iyo waxbarashada iyo wax walba waxaad baran lahayd waxyaabo ku saabsan mataqaana barnaamijyadaas iyo qaabkaas loo sameeyo sidoo kale deeqaysaguna la mid ah waxyaabo social media ayuu effortkiisa badan u gelin lahaa badan dadka gaalada waxay sameeyaan qofkan wuxuu ku fiican yahay eegaan laakiin naga markay reeniga noloma eegi jirno ma aragtay laakiin niyo waxaan aaminsanahay dadka kale marka loo eego inaynu aad uga maskax badan nahay garanaysaa ay wayna la baadhinun waayo waxaad arkaysaa iminka dadka kale qofku hal shay unbuu qaban karaa garanaysaa inagu waxaanu qabanaa intaasoo shay mid baad arkaysaa isagoo injineer haddana biyaha qasbadaha guriga u xidhaa waxaan aaminsanahay maskaxdeenu inay waxyaabo badan samayn karto laakiin dadkeenu aanay dareensanayn inay samayn karto waayo iminka markaan jaamacadda dhigan jiray dhakhtarnimaan dhigan jiray miidiyahan iyo waxaana passionkayga ahdo waan weligii ku dhex jiri jiray garanaysaa dhinacna gama bixin mararka qaar xitaa waxaa dhici jirtay inaan kharashaadka jaamacaddan miidiyaha ka bixiyo garanaysaa laakiin dadku aanay dareensanaan jirin ardaydu way la yaabi jirtay niyo adigoo dhantiisa sideebaad miidiyaha ugu dhex jirtaan iyo isma match garaynayaan bay ku odhanayaan garanaysaa way jiraa laakiin dad badan waxaa maan Cabdikariin aan kaayra dhex gale odayaashu waxay dhahaan hadalkaaga duqsi ku noqde adigoo dhakhtara maanad mararka qaar ka fikirin inaad barnaamijyadii aad ku takhasustay ilkaha inaad inta dadka soo fadhiisato aad u yara duubto oo mararka qaar aad maaragtay uga faa'iidayso waan sameeyey saaxiib xalqad baa jirta bay doonto oo aan aad ugu falanqaynin aniga ninka loo doctoran saaxiibna halkan naadaga salaamay oo maxaad u baahan tahay iyo muxuu qof magaranaysaa aad discussion boardkaas uga sameynay insha Allah dhawaana wala daawan doona marka waxaan aaminsanahay qofku wax kasta iminka dad badan waxaa jira jecel inay wax sameeyaan laakiin duruuftu ku sababtay inay wax kala qabtaan garanaysaa oo isla niyo hadaad waxaan sameeyay ma la dhahaa niyo ninkii weynaa waxaan sameeynaya waa maxay dadna waxaan xasuustaa markan jaamacadda aan sii dhameynay dee anigu waxaan ahaa nin connections badan lahoo dee magaaladii shaqaysanaya dee oo dee arday badan oo iyagu dhakhtarnimada inay bartaan keliya garanaysaa ku takhasusay laakiin anu markasta waxaan aaminsanahay dhallinyaradan kula talinaya markaad wax dhiganaysid markasta ha noqon inaad shaygaasun aad fokus u saartid waxyaabo kale nolosha waayo noloshu iminka dad kan ka baxdid waa inaad heshaa dee wax kaloo iminka haddii la dhaho dhakhtar baanay waa la joojiyeyba dhakhtarnimada waa inaan ismaareeyaa dee garanaysaa marka dhallinyaradan aad waxaan kula talinayaa inay hal shay un aanay focuska saarin waxyaabo kale ay qaban karaan oo inay iyaguna sameeyaan xabiyaal haddaba su'aalaha tooska ah ee aniga iyo asxaabteyda aan sida guud isu weydiinno aan ka yarnasano halkan saa hadda ujeedaan waxaa ku yaala Sam Talks anigoo ku magacaabanahay laakiin su'aalahan waa su'aalo fact ah oo yacni nolosha qofka bini'aadanka ah oo dhan surroundurka ah intii aanu ka samayn karnay waan ka samaynay markaa su'aalahaas ayaa anagoo team is weydiin doonaa waxaan rajaynayaa idinkuna insha Allah inaad is weydiin doontaan horta saaxiib aad baan idinku hambalyeynaya idinka Herman Media basaad su'aalahan quruxda badan soo diyaariseen waxaan rajaynayaa bulshadana daawanaysa inay su'aalahan iibsan doonaan oo isticmaali doonaan asxaabtooda waalidiintooda familygooda cid kasta oo ay jecel yihiin inay la ciyaaraan game noocan oo kale soo caawa anagu oo ciyaarin haddii su'aashan igu soo baxday waxba hadalkayaan idinku badan su'aashan baan ka dhacay garanaysaa
haddaad su-aashan akhriyo waxay noqonaysaa haddii calafku qof ahaan lahaa maxaad ku samayn lahayd garanaysaa niyo su-aashaas waxay ku wacnaan lahayd anigoo dareenkeeda leh waayo waxa weeye haddii calafku qof ahaan lahaa maxaad ku samayn lahayd garanaysaa may calafka liskuma daree kaa waalayaa niyo waxaan odhan lahaa dadka wanaaji anigana i wacnow dad badan oo kaa cawanaya ayaan arkay haye maxay leeyihiin haa niyo way jiraan dad badan oo imika calafka qofaan ka caawin ma jiro midda kale waxaa jirta xitaa niyow khalad loo geysanayo ama qof baa intuu wuxuu doono kasuu sameeyo ma garanaysaa ay koranay calaf baa ka adeegaydi ma garanaysaa markaas kale hadduu calafku hadli lahaa taasoo kale ku caddeeya baa dhici lahayd ma garanaysaa marka waxaan odhan lahaa niyow calafow sidaan hore u sheegay dadkana wanaaji anigana i wacno su-aashan waxay leedahay fariinta aad jeclaan lahayd inaad hadda moobilkaaga ku aragto dee waa ta lacagta saadka iyo daabta wallaahi runta marka laga hadlo fariintan jeclaan lahaa inaan hadda fariin qof ii soo diro fariintan ugu jeclaan lahaa inaan moobilkayga ku arko waxa weeyaan aabbahay igu soo qoro aabbo allah u naxariistee wallaahi aad baan ugu xiisay aabbahay bishii hore waxay igu buuxday 3 sano ayuu sii mootan yahay haddana waxaa la moodaa maaragtay inuu shalay un geeriyooday dhammaantiin waxaan ka codsanayaa aabbahay usoo ducaysaan allah u naxariistee ilaahay qabriga nuuriyo aniguna sidoo kale maantada in barnaamijka duubayno waxay ku beegan tahay 2 sano ka hor maalintii aabbahay dhintay isagana waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto midda kale waxaan xasuustaa qofkii ugu horreeyey markuu maqlay familiga marka laga reebo qofkii maqlay iisoo tacsiyeya wuxuu ahaa saaxiibkii qays weliba igu yiri waxay kala horeeyeen muddo yar aabbaha iyo aabihii sanad bay kala horeeyeen igu yiri saaxiib waan dareemayaa codkii waan hayaa weli waan dareemayaa saaxiib ilaahay ha u naxariisto saaxiib waxa la yidhi maxaa maamaadii soo qabo rag baa leh aad baan saaxiibtaana kaaga mahadnaqayaa idinkuna ducadaan idinka filayna insha allah su-aasheeda labaad haddaan ka jawaabo waa su-aal aad niyow inkastoona magaranaysaayey waxay odhanaysaa kelmaddii ugu xumayd ee qofku yidhaahdo ee ilaa imikaanad ilaawin magaranaysaa waa su-aal qomamaa ama si kale marka loo dhigo yacni ka turjumaysa dee wax anigu waxaan ahay qofka iminka marka wax loo sheego ama wax lagu dhaho dadka qaar si khaldan bay u qaataan ama waxay sameeyaan qofkii de way ku colaadiyaan aniga laakiin niyow shidaal bay noqotaa sana aaminsanahay su-aashaas waxay ahayd qofka lama sheegayso maaha lama sheegi waa su-aal aad maskaxdeeda xasuus ugu lama garanaysa waxyaabahaana ilaawin weliba waxyaabaha dhallinyarnimadii intaan markaan ka yarnayn teenage-ka marka la dhaha maaragtay waxyaabaha kusoo gaadhaan iyo way ka halis badan yihiin haa hadda ay way ka halis badan yihiin anugu imika waxaan aaminsanahay levelkan ay marayno adult baa la dhahaa in gallo waa xilliga qof kasta wixii magaranaysa wax badan aanay dhibayn waxa dhacday sheekareeda ka sheekay inan baan beri aan aad ugu dakranaa ama aan aad uga helay magaranaysa inantii waan wada sheekaysanay muddaan wada sheekaysanayni waxaan wada sheekaysano waxaan isku faraxsanaano waxaan wada hadallo wax ma garanaysaayey aan is aragno waxa dhacday maalintii dambe niyow si kedisa unbaynantu waxay bilowday wax kasta bows galaan ma garanaysa yani eeg wax soo gaabta eeg wax soo gaabta waa dareemaysaa ayada kasoo dhaca halkuu taagnaa iyo wax markii istaaga waad kala dareemaysaa dee wixii markii ay jarmeen waan yaabay midda kale taasoo kale waxay ku xuntay wixii ma garanaysid waay eeg su-aashaad qofkan ka qanac oo qofki markuu ku dhaho haa sababtii inaad u daalac ku raacaya haddaad su-aasha weyd laakiin wixiina ma ogid su-aashaad qofka iska weydiin lahayd waxaa ka badan su-aasha naftaada ku weydiinaysa kule qofka maxaad ku samaysay tolma wax khaldan baad samaysay adigu ma weydiisay markaas waxaa ku jira maxaa xiriirkeena jaray maxaa niyo muddo markay la meeraysatay weydiiyey aad u dhowr jeer gaagaabsatay markii dambe aan ku uri runtu fanta maaha walaala ii sheeg maxaa dhacay waxay igu tiri niyo walaal hanixin garanaysaa horta waan booday mar waxaan siinay tam cudur baahiya boqol wax baan ka fikiray garanaysaa hayo waa ku uri waxay igu tiri niyo intaan wada sheekaysanaynay wiilkan aan wada sheekaysanaynay dadna waan kafta waa caadi gabadhu kun bay la wareey wax waan iska ilm garanaysaa waxay tiri maaha joog waxa jirta niyo labadiina waa tartan waan yani iskiin berber dhigay ha niyo waxaan ii soo baxday inaad nolosheeda u qalmin qalbiga waxaa ii soo baxday nolosheeda inaad ku soo baxayn laakiin maanta waxaan leeyahay adigaa nolosheeda ku soo baxayn waay su-aashan waxay leedahay
lacagta xiriir nooceeya ayaad leedihiin wallahi horta lacagta xiriirkaan leenahay xiriir aad u wanaagsan maa sababtoo ah dee taajir baan noqon lahaa iminka intaan xiriir wanaagsan leenahay laakiin lacagtu lacagay ragga kala labeeyaay liitaa gargaaraay lacagta horta waa waxa ugu weyne iminka nolosha aadamaha saamaynta ugu weyn ku leh dad badan baa yidhaahda lacagtu farxadda ma samayso laakiin anigu waxaan ahay dadka aaminsan lacagtu iyadaa farxadda samaysa farxad aan lacagta ahayna ma jirtaba haddii aad wax stress kugu dhacayo ama aad u murugoonayso ama aad u ooyeyso waxa ugu weyn ha noqoto aad u murugoonaysaa lacagta sababtoo ah waxa weeyaan lacagtu iyadu cidna ma khiyaamayso de khayrkaana way ku dhaafinaysaa dadka qaar waxaa jira yidhaahda 20 jir ma rabtaa inaad milyaneer ku noqoto waxa weeyaan horta lacagtu waxa ugu weyne lagu keenaa waxa weeyaan waa dadaal iyo inaad maaragtay xoog u fikirto qof kasta oo lacag haystaana waqti xaadirkan dadka dee lacagta haysta maalmo badan buu soo maray oo adag iyo waxa weeya khaladaad fara badan oo uu sameeyey oo dib u ka saxay asxaab fara badan oo ay kala dhinteen hablo badan oo waxa weeyaan buufiyey hadday doonaan marka lacagtu maaragtay waa waxa ugu weyn soo talo xoog iyo waqti iyo lacag la isku helo xoog iyo waqti iyo lacag la iskuma helo waa run laakiin haddaad si fiican u dadaasho waxa weeyaan waad isku heli karaysaa iminka tusaale ahaan marka aad 60 jir tahay ama 70 jir tahay ee aad milyaneer tahay ama bilyaneer tahay waxa ka fiican adigoo dhowr boqoloo kun hadda akoonka ku haysta adigoo 20 jira waayo waxa weeyaan noloshaada wax badan ayaad hadda samaynaysaa oo macna kuu samaynaya laakiin markaad weynaato waad daalaysaaba meel kasta waad ka daaladaanaysaa marka dhalinyarada anigu talada aan siin lahaa waxa weeyaan waxa ugu weyne maaragtay kaa murugeysiiya ama waxa weeyaan noloshaada dee maaragtay murugo kuu keena ha noqoto lacagta waxa kale ka sokeeyo oo dhani wax weyn maaha waa la bedeli karaa waxa kale oo dhan waa wax la bedeli karo oo waxa weeyaan wax ka fiican baa imanaya laakiin lacagtu waxa weeyaan ha noqoto saaxiibkaaga ha sidoo kale dadka qofku lacagta uga dhow yahay waa qofku asxaabtiisa waxa weeye dadka ku xeeran uga dhow yahay tusaale ahaan iminka haddii dad badan oo lacag haysta aad ku xidhan tahay dee ka ugu faqiirsan baad adigu ahaanaysaa laakiin maalmaha ka mida groupka waad gelaysaa laakiin haddii waxa weeye odhaah yar baa waxay tidhaahdaa haddii cagekaaga markaad eegto aanay ku inspire garayn oo waxa weeye aanad la dhicin dee waxa weeye dadkaas waxay samaynayaan kuma jirtid maxaa dhahdaye groube cage baad ku jirtaa hog baad ku jirtaa ka baxa imika waxa laga yaabaa kariirkaaga nolosha dee waxaa jirta intaas oo waxaad kasoo shaqaysay mararka qaar waxaa jirta aad ka shaqayn jirtay shaqo aanad comfortable ku ahayn reasonka ugu weynaad uga shaqayn jirtay shaqadaas waxay ahayd inaad dee ku noolaato dee masaariiftaada kala soo baxdo marka waxaa jirta imika dhalinyaro badan oo mataqaanaa ka shaqeeya yacni meelo iyagoo aanay jeclayn waxyaabo aan hobbigooda ahayn waxyaabo iyaga aan baashan ka ahayn ma dhacday imse jeer bay dhacday inaad yacni waxaanad comfortable ku dareemin ama aad kasoo shaqaysay ama aad aragtay ama baad soo jirtay adoo waxaan wada aad sometimes arki jirtay qof wixii aad jecleed wadaba horta way dhacday beriba waxaa jirta aan ka shaqayn jiray waxyaabahan la dhaho maaragtay wacyigelinta awareness mobileka weliba wareega mobil baa lagu dhiibayaa dad badan oo ka shaqeeyna way jiraan mobil baa lagu dhiibayaa GPS-ka wax lagugu xidhayaa marka reeraha questionnaire baad ka samaynaysaa barnaamij baa lagu dhiibaya lagu odhanaya hay'ad baa lahoo wadanad lugeynaysaa xaafad baa lagu dhigayaa tiimka subaxii hotelka ma iskugu yimi waa la kala qaybinayaa garanaysaa tiim xaafad heblay tegayaan tiimkan xaafad heblay tegayaan ma jiri kartid يعني بين مشي كرتيدو جي بي اس كموبل كاغا كويشنير marka sameynaysid imka tusaalan qaysban كويشنير ka qaaday halkan baan ugu weeyada saartay ka hor dugtaa socod migaraysa dabeetna qof kasta diiwaan gelisa جي بي اس kiisi uu dhacaya migaraysa inuu shaqada aad baan u nacbaa saaxib si wixii dhan baa wareegaysa hatta ma sameyn kartid
badan hay'adahaas ayaa ku shaqeeya Ha. waxaad ma sameyn kartid intaad buuxbuuxsato mana kartid waan maray ha waayo GPS-ka uu kula soconaya kula soconaya. inta kiiloomitir socotay Ha. ayuu kugu fadhiyaya ha garanaysaa shaqadaas inaan aad u necbaa niyo hay laakiin dadka dulqaadka lale soo maaha waxaan yani totally ma dareemayn inaan waxaan qabanayo heer aan markii dambe gaadhay inaan joojiyaba adigana isla su-aashaas waa cabdikariin weydiiyo kale imise shaqo oo mataqaana shaqooyin oo aanad jeclayn inaad comfortable ku dareemayn ayaad kasoo shaqaysa wallahi horta mawlido anigu marka run laga hadlo malihi experience-ka shaqada oo mabaan shaqaynba waxaan jaamacadda ka imi 2020kii meelo fara badan baan CV-gayga geystay kambaniyo fara badan oo imika jira oo aanan magacaabayn laakiin jira oo businessyo badana waan ka aad uga salaamayo marka meelihii faraha badnaayee aan shaqada geystay meelna imay aqbalin oo maaragtay dhinacna YouTube-kan ka wadayo aanan markaa lacag ka samayn jirin oo dee waxba aanay iga soo geli jirin laakiin wax aan jeclaa ahaa oo aan islahaa dee marunbuu bal iska qarxi doonaaye iska wad